بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا كسو دبادة channel كينا هبة محمد أحبابي aad baan idin salaamaya dhammaantiina meel walba oo dunida daafaheeda aad ka joogtiin khayr badan nimco barwaaqo iyo baraare aan Allah subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa insha Allah. alxamdulilah mahad Allah jala wacalaa baa iskale. intaas kadib mowduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay insha Allah biidni illaahi kariim. haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala ragga iyo dumarka yacni labada qof oy nolosha wadaagayaan hadday kala tagaan, inta badan anigu mid ayaan isweydiiyaa oon ku yaabay oo ku amakaagay oon la tacajabay waxay tahay labada qof ilaahay subxaanahu wa tacaala baa nolol iskugu daray oo yacni way isguursadeen. mathalan ilaahay baa awlaad ka dhex beeray, allahu mustacaan way kala tageen, allahu mustacaan hadday kala tagaan subxaana allah. hal mid ayaan rabaa inaan weydiiyo ragga Soomaaliyeed oo anigu aan la yaabo la tacajabay. waxa weeyaan halka mid oon weydiinayo walaaladay wiilasheena khayr Allah siiye raggeena ilaahay xifdi adduuniya aakhire. hadday gabadhii kala tagaan mathalan oo calafkii intaas ku dhamaado oo maxaan ku iraahdaaye yacni intaasba ay sheekada kusoo gabagabowdo, waayo ileen qadarkii rabbi baana la isku qabaa, qadarkii rabbi baana lagu kala tagaa. labada qof hadday noloshii ka burburto ay noloshii sidaa dadka isfahmi waayaan, ilaahay subxaanahu wa tacaala arladaas weyn ayuu wuxuu dhahay dadka ku kala yaaca. ina ardallahi waasac, ilaahay dhulkiisa waasac waay. labadii qof way iskeeni waayeen mathalan calafkii baaba intaas ku ekaayo, ilaahay gabadhii ubad buu kaa siiyey alxamdulilah. marka labadii qof ilaahayna maxaan ku dhahay ubad dhexdoodii dhigay ayna kala tagaan, hal mid ayaan rabaa inaan weydiiyo wiilasheena Soomaalida ilaahay ha xifdiye. walaalayaalow, haddii aad gabadhii kala tagteen ma caruurtii baad kala tagteen? waa su-aasha aan la tacajabo aan rabo inaan weydiiyo ragga Soomaaliyeed. gabadhii waad isfurteen ma ahan, gabadhii waabaad kala tagteen heedhe, ilmihiina ma furtay? ilan gabadhan xarig baa kugu xirnaa oo xarig xalaal baad ku mehersatay, yani meherkii yani waa ninkaaxsatay mathalan, waad kala dhamaateen oo dee waad furtay gabadhii soo maahan. su-aasha aan rabo inaan weydiiyo waxay tahay gabadhii waabaad furtaye oo gabadhan waad furtay sax, ilmahaadina ma furtay in adeerow maxaa qaldan? sidee waxay u jiraan? gabadhii waad furtay waan garanay sax waay, ilmahan ma furtay? tacajab haadaa ani waa midaan la yaabana waa midaas. gabadhaad waa furtay sax, laakiin ilmahan ayagana ma furtay? subxaana malik الnaas, subxaana malik الquduus rab الcarsh الcadiim. yaa maxaa qaldan? أستغفر الله العظيم وأتوب إليك. يعني وتعجب مهن وياب مهن. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأثيلا. ياب كيس أنا ياب يعني ياب إيش ورنين كاني إلهي سو مسؤولية دي مو صارين أو قوة كان أساقا مداري حتى هديك التقان قبردن ilmahaada hataa islaantan haddaad furtay ama gabadhan aad furtay walaal, ilmahaada sidii unbaa lagaa rabaa inaad u dhaqaalaysid. hadday tahay madarasadoodii, hadday tahay iskuulkoodii, hadday tahay waxay cunayeen, ya kullu inaad adiga dhabarka saartid sidii nolol kale samayso, ma fi mushkil, nolol kale samayso, dhibaato male. ayadan hadday rabto nolol kale ha samaysato, ayadaa ikhtiyaar iska leh, laakiin mas-uuliyadaadii weli way ku saaran tahay maahan inaad ilmihii wax bartid. ilaan beryadaa lagu weydiinaya sax, inaad ilmihii wax bartid, waxay cunayeen, meeshay seexanayeen, kullu wixii dhan waa la iskala laabtada. gabadha ninkan ma furay, ilmihiina wuu furay. yaa ilmihii la balaanbalaya oo la rafaaday waa gabadhii. meeqaga dumaraan aragnaa rafaasan oo aaway ninkii ilmahan dhalay de waan kala tagna. walaal haddaad kala tagtaan de isaga miyaad kala tagtay? ilmihiina miyuu furay? adiguubu ku furaya, carruurtiina meeday? walaal carruurta meel kuma sheego, ninka maalintaan kala tagnaaba noogu dambeysay. إنا لله وإنا إليه راجعون. وياب معهن والله وياب. إن كستودة ابن آدم كو دتكو دان لا اسكو داري كرين أو رق وناكسن إيجران أو ما شاء الله تبارك الرحمن، لكن ويريهن وقليل أدو يريهن. رقا إنتي دمر كوضا فران قبردي إنتي فران ولي المهي سيدي وحنانيو ويريهن وضد أدو ير ما بدنا إنت ضيعضا أي أبدا. حان أرنينا مرك الله يهديك، إلهي دي سو هديو، إلهي دي سو هديو. وبتكني عدي متيسن دونتو أما عدي وح أطهر دونا أما عدي يعني إلهي بقى هو يدي بقى ما أبيه بقى
hooyadu mas-uuliyad way ka saaran tahay oo iyadana firkeed haddii la furo ma ayna suuqa iska gasho ama ay nin kale iska guursato ilmihii dayacdo no labadan qof hadday kala dhamaadaan caruurtan hooyana way u baahan yihiin aabbana way u baahan yihiin hooyadiina way u baahan yihiin aabbihina way u baahan yihiin taas waa xaqiiq weeyaan aabbihina waa inuu wax taraa hooyadina weli waa inay sidii ilmaheeda ay u haysataa ma aha inay nolol kale intee samaysato ilmaheeda dayacdo inta badan laakiin dumarka ma sameeyaan dumarku aad bay u naxariis badan yihiin caruurtooda dhinacoodana lagama soo maro lianna ayadaa walacday ayadaa uureysatay oo 9 bilood caloosha ku siday ayadaa foolatay ayadaa umulla gashay marka way garanaysaa ilmaha xanuunkooda laakiin aabaha easy bay ka dhigtaan ilaahay baa isiiyey bis khalaas waxay mudnaanta siiyaan nolol kale inay samaystaan ilmahaasna ay ilaabaan inta xun baan sheegayaa inta wanaagsanna ilaahay idin xifdiyo dadka la iskuma dhexdari kara moogtahay la iskuma qaso ummadda dadna waa dad wanaagsan oo hataa hadday kala tagaan weli ilmahooda sidii uu fiirsado rag hataa waxaa jirto aan guursanin laakiin way yaryihiin aad bay u yaryihiin dumarka ayaa aad u badan dadka aan guursanin dhaha ilmahayga ma doonayna nin dhex keeno anaa korsanayo marka aniga hadda waxaa weeyaan su-aashaas warnimanow haddaad gabadha furtay ilmaha maada furine caruurtaada sidaad oga warhaysay oga warhay hadday wax walbaba dhinac sidaad markii hore aad u ahayd u ahow saasaa ku wanaagsan lianna kuma wanaagsano inaad maaragtay ilmihii dayacdo dhahdid khalaas waan kala yaacnay bas marka ayadaa korsanayso oo ayada maxay ku korsataa mas-uuliyaddii way ku saaran tahay weliya war ilaahay ka xishooda ilaahay ka baqa oo ilaahay u noqda oo ubadkaas waxa idinku lahaayeen siiya walow hataa gabadha haddaad kala tagteen anigu waanadeedu waa intaas khayr badan baa idin rajaynaya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh fii amaan illah